maamulka sare ee jaamacada Golis qaybteeda Berbera ayaa habeenkii xalay ha munaasabad soo dhaweyn u qabtay ardayda sanadkani galaysa jaamacada Golis ee Berbera ama isqortay munaasabadan oo ka dhacday hotel Berbera Beach ee magaalada Berbera ayaa waxa sidoo kale ka qayb galay marti sharaf iyo dad kale oo aad u tiro badan waxaana halkaasi ka waramay jaamacadan iyo qaybaha kala duwan ee ay bixiso gudoomiyaha guud ee jaamacada Golis ee gobolka Saaxil Professor Naasir Xaaji Cali Shire waxa uu sheegay in jaamacadan ay ka mid tahay jaamacadaha ugu sareeyay ku yaala gobolka Saaxil soo dhaweynayso cid kasta oo doonaysa heer jaamacadeed waxaan kaloo idin sheegayaa oo halkan idinku bishaareynaya in jaamacada Golis insha Allah taala sanadkan 20 iyo 21 inay furi doonto dhakhtar u gaara jaamacada oo yaalaan 10 ama 15 ila 20 sariirood oo markaa taasi ay keeni doonto in inagu aan yeelano meelihii laabkii iyo tababarkii si gaara waxaan ugu bishaareynaya arday isqortay qaybta muxuu ahaa caafimaadka waxa kale doonaya halkan inaan idinku bishaareeyo oo aan doonaya inaan sanadkan inaan idin hayno Dr. Faaduma Az-Zahra oo ku soo biirtay jaamacada oo sidata oo sidata laba PhD sidata oo qaybta caafimaadka noqon doonta macluumaad inooga shaqeyso oo inooga timid dalka Suudaan qaar kamid ah ardayda isqortay jaamacadaasi iyo dad ka soo qayb galay oo isugu jira aqoon-yahan dhalinyaro iyo sidoo kale dad marti sharaf oo dhamaantoodba halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaa soo dhaweeyay ardaydan cusub ee galaysa jaamacada Golis iyo waliba aqoonta ay jaamacadaasi bixiso waxay sidoo kale ka warameen sida ugu baahan yihiin inay ka mid noqdaan ardayda jaamacada Golis maanta halkoodii aan joogay aad iyo aad bay aniga iga nasiib badan yihiin reerka iyagu dan yar buu ahaa waxa la isiiyay 1500 shilin xamarna waa la ii diray waxa waliba la ii raaciyay 4 sano jaamacadu socoto iyo sanad ka horeeyo luqadda la baranayo soo noqonin hooyaday waxay ka baqaysay hadii aan soo noqdo lacag baska la igu saaray in la ii waayo mar labaad xildhibaan Naasir wuxuu ku jiraa xildhibaanada gobolka u dhashay waliba marka lagu daro mala 10 bay isagu kamu soo bixin gobolka Saaxil ee wuxuu ka soo baxay gobolka Togdheer laakiin marka la eego xildhibaanada muddadu u dhamaatay doorashadii u diyaarka ah ee halkan laga doortay xildhibaanka ugu faa'iidada badan buu noqday ka soo bixin laakiin wax fiican ku soo kordhiyay Berbera xilliga uu yimid xildhibaanku jaamacad ma bay jirinba munaasabadu intii ay socotay halkaasi waxa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale riwaayado lagu talagalay aqoonta iyo ahmiyadda ay u leedahay bulshada ardaydan ay jaamacada Golis ee Berbera ay soo dhaweysay ayaa noqonaya ardaydii ugu tirada badnaa ee jaamacada isqora intii ay furnayd Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera